waxaan kuu soo xulay xidhmooyin xikmado jacayl ah intaad ka xulan karteed xambaari karto xiskaaga ku hay. anigu ma garanayo in jacaylku isbedelo, dadku way isbedelaan, xaaladuhuna way isbedel badan yihiin. ku soo dhawaada daawadayaal mawduuceena maanta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. jacayl waan ku jecelahay ma aha keliya waxaad tahay inaan kugu jecelahay, laakiin waa waxaan noqdo markaan kula joogo. jacaylka ugu wanaagsani waa kan kaa dhiga ruux ka wanaagsan sidii hore, isaga oo aan bedelayn ciddaad tahay, kaana dhigayn ciddaanad adiga ahayn. waa jacaylka waxa kaa dhigaya inaad qof kale la doonato inuu faraxsanaado, xataa haddii aadan adigu qayb ka ahayn farxaddiisa. ha ka quusan dadka aad jeceshahay, dulqaadkaaga iyo daacadnimadaada ayaa laga yaabaa inay kuu soo celiso. mar kastoo aynu kulanno oo aynu isku dhoola caddayntu waa bilowga jacaylka. jacaylka badan waan ka baqaa, haddana jacaylka yari ma raali geliyo. mararka qaarkood qalbigu wuxuu arkaa wax ka qarsoon indhaha. indhaha ku jeceli waxay arkeen bay beeniyaan, dhagaha ku necebina waxa lagaa sheegay ayay aaminaan. dab fiican ayaa laga yaabaa inuu wadnahayga ka daaran yahay, haddana lama hayo ruux u soo diirimaad doonta, socotaduna qiiqa ayuunbay arkaan. mararka qaarkood waa inaad xaqiiqsatid inay jiraan dad wadnahaaga degi karaa, balse aan noloshaada oo idil degi karin. dadkaad jeceshahay sii baalal ay ku duulaan, xididdo ay ku soo noqdaan, iyo sababo ay ku joogaan. jacaylka ku fidi meel kastoo aad tegtid, cid kasta oo kuu timaada ha u ogolaan inay kaa tagto iyadoo aan sidii hore ka faraxsanayn. ugu dambayntii daawade, jacaylku ma laha sees, waa badweyn aan bilow iyo dhammaad toona lahayn. waxaan kuugu baaqayaa qalbi kule waan ku jecelahay, adigu beegsa booska qalbigayga. wabillaahi tawfiiq.